baro halyeygan. daawadayaal barnaamijkani waxa uu noqon doonaa mid la faguro isla markaasina ka warama taariikhda dadka caanka ka dhaca Soomaalida dhexdeeda intii dhimatay iyo inta noolba. barnaamijkani waxa uu toddobaadkii 2 mar aad ka daalacan doontaan kana daawan doontaan halkani. barnaamijka baro halyeygan waxa aynu maanta ku soo qaadan doonaa madaxweynihii labaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliland, cabqaradii siyaasadda Soomaalida, hogaamiyihii ruuxiga ahaa eebe naxariistiisana ka waraabiye marxuum Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal. maxamed xaaji ibraahim cigaal qaasaali waxaa lagu tilmaami karaa siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee xilalkiisa oo kala qabtay kii ugu waqtiga dheeraa nolosha siyaasadda. maxamed xaaji ibraahim cigaal wuxuu ku dhashay sanadkii 1929 degmada Oodweyne ee gobolka Togdheer. yaraantiisii wuxuu ku barbaaray magaalooyinka Burco, Berbera iyo Sheekha. magaalada Sheekh ayuu ku dhamaystay waxbarashadiisii malcamad Quraanka ilaa iyo dugsiga Sheekha. waxbarashada sare ayuu u tagay oo la xidhiidha xagga ganacsiga magaalada London ee waddanka Britain. waxaana uu dalka dib ugu soo laabtay horaantii sanadihii kontomeeyadii, xilligaasi oo ay aloosnayd dabayshii xornimadoonka xisbigii SNL. الله naxariistee waxa uu ahaa siyaasi rugacda ah oo qayb weyn ka soo qaatay siyaasadda guud ahaan Soomaaliya. sanadkii 1956 allaha u naxariistee maxamed xaaji ibraahim cigaal waxaa loo doortay in uu noqdo xogayihii guud ee xisbiga SNL ee u halgamayay xornimada Somaliland. bishii May 12 sanadkii 1960 allaha u naxariistay maxamed ibraahim cigaal wuxuu gacantiisa ku soo saxiixay in Somaliland ay xornimadeeda ka qaadato dowladda Ingiriiska taariikhdu marka ay tahay 26 Juun sanadka 1960. markaasi waxaa cigaal ku weheliyay heshiiskaas rag ay ka mid ahaayeen علي كراد جامع حاجي إبراهيم نور محمد كيس تعالي يا محمود عبد عرالي. محمد حاجي إبراهيم عقال الله أنا حريستي وحو النقضي هقاميه أوري سوماليلاند كدي مركي حرني مديدة قادي لحي اللباتنكي جون سنة كي كون سقال بقول لحدنكي خطبة دير أو تاريخ كحسن أو عقال أوتشيري قولي وكيلة دي سوماليلاند كون سقال بقول لحدنكي markii xornimada Soomaaliland uu soo saxeexay waxa kamid ahaa ereyadeedii maqlay maanta maxay ahayd secretary secretary jawaabtiisii waxay noqotay arrinkii sidii aynu doonaynay inuu dhacay ina kulli kooda dirsantiin baan maraynaya maalintii isniintii ayaan hadalkii istaad markaa waxa ma dowladda Ingiriiska awalba u sii go'nayd waxa ay doonayaan inay yiraahaan asahatee inta meesha ku jirtay waxa la hubinayay waxaan la doonayo dowladda la doonayo mid dadkii wada doonayo dad u qalmaana gacantooda ay galayso inay tahay in kala hubsanay. dadka labadii casho horaan saragnayba baadniin arrinku la baaray dadka meesha joogay iyo dadku sidoo wax doonayaan iyo saa loo eegay arrinku inaga wada dhab yahay iyo inuu maxay jibo arrinku inaga yahay in la baaray bixi. dadkana markii taas cadaatay maalintii arbacadii galinkii dambe shalayto ayuu noo yimi colonial secretary magaalada dadkana khudbadan marka la sheegay ayuu akhriyay. hadalkii waxa weeye guntiisii bisha 1 July 1 inaynu dawlad ahaano si aynu walaalin Soomaaliya isu raaci karro ayuu guntiis noqday. marka maanta wada dheer oo aynu soo maray aynu maanta maxay hayday joognaa madaxeedii asaatay midkii ka dheer kana adag ayaa imika aynu galeynaa. 1 July 1960 markii gobolada koonfureed ee Soomaaliya ay iyagana xornimadooda ka qaateen dowladda Talyaaniga ee ay dhalatay Jamhuuriyadda Soomaaliya, maxamed xaaji ibraahim cigaal oo hogaaminayay wafdigii ka socday Somaliland wuxuu noqday wasiirkii gaashaandhigga ee ugu horeeyay Soomaaliya. maxamed xaaji ibraahim cigaal waxa kale oo uu noqday wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya kadibna Cabdirashiid oo ra'iisul wasaare ahaa ayaa isku shaandheeyay golihii wasiirada. kadibna cigaal waxa uu noqday wasiirkii waxbarashada
bartamihii 1962 ayuu iska casilay jagada kadibna isaga iyo Sheekh Cali Ismaaciil Yacquub iyo Sheekh Cali Jimcaale waxa ay aasaaseen xisbigii SNC markii dambena wuxuu ku soo biiray xisbiga SYL 10 July 1967 wuxuu noqday cigaal ra'iisul wasaaraha Soomaaliya markii Cabdirashiid Cali Sharmaarke loo doortay xilligaasi madaxweynihii Soomaaliya cigaal mar kale ayaa loo doortay jagadaasi ra'iisul wasaaraha doorashadii 1969 22 Oktoobar 1969 markii inqilaabka military oo uu hogaaminayay Maxamed Siyaad Barre uu ka dhacay Soomaaliya Maxamed Ibrahim Cigaal wuxuu ahaa ra'iisul wasaarihii ugu dambeeyay ee dawladda Soomaaliyeed oo la doorto waana la xiray wuxuuna Cigaal xabsiga ku jiray ilaa iyo 1981 bishii February marka laga reebo muddo sanad ka yarayd oo ahayd 1975 ilaa iyo 1976 oo mar loo magacaabay danjiraha Soomaaliya u fadhiya New Delhi ee dalka Hindiya kadibna isla markiiba xabsiga ayaa lagu celiyay 1985 waxa jirtay mar loo magacaabay Cigaal gudoomiyaha rugta ganacsiga laakiin kuma uu raagin jagadaas ee uu iska casilay markiiba burburkii dawladda Soomaaliya kadib Cigaal wuxuu ka qayb galay sanadkii 1991 shirkii dib u heshiisiinta ee Soomaaliya ee lagu qabtay wadanka Djibouti 1993 bishii May 5 Cigaal waxa loo doortay madaxweynaha Somaliland iyadoo shaqadaasi dib haddana loogu doortay sanadkii 1997 daawade ila dhageyso khudbada uu ka jeediyay Hargeysa Stadium marxuum Cigaal sanadkii 1994 waqtigaasi oo ay socotay damaashaadka iyo xafladeynta hubka dhigista ciidankii jabhadaha iyo qaramaynta ciidankii booliska Somaliland ayaa markii la xayay اللهم اغفر لهم فإنهم لا يعلمون ما يفعلون يا حيوان تبدأ بدافون وحي عيسى حي سمينا يقرون يا رواتي قرنتونا مرجيه ينمى بعضية ويجمى بعضية يتلقوا هذا الرجل ويجمى لي بعضية يقول دبر كل الجسمية دبر كل أيام كسر يا أبو يرقاك تنسى وتنسى المرمى وعليه يسوع زوال سنوية دبر كل كسر يا أبو يرقاك تنسى وجاء المفروض باب الجرمان أنا كريم عليه ما زال شيء ولا شيء يستمر وصومال لاندا وذكر محمد صح وانت وقر ظاهر في كسوح حدد بعد على إيقاع كل حصه أي كبير وعليه محمد لكن لا يفرق من بقيه فهو مرجع يسمى ثالث أيضا من هذا الوضع على المساري على البهاد بارراي بني الوضع على المساري على البهاد بارراي انت الصورة السلام عليكم marxuum Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal waxa bulshada Somaliland iyo dadka kale ee wadanka daneeyaba si weyn isku raacsan yihiin in uu yahay maskaxdii ka dambeysay inay Somaliland noqoto dal madax bannaan isla markaana gaadho halka ay maanta joogto markii wadanka loo doortay inuu hogaamiyo sanadkii 1993 dalka kama jirin haba yaraatee waxaan dawladeed ah oo uu shaqeynayay waxaana uu Somaliland u alifay dhammaan shuruudaha dawladnimo sida calanka lacagta baasaboorka dastuurka qaranka iyo waliba kan ugu muhiimsan oo ah hanaanka dawladnimo muddadii ugu adkayd ayuu Cigaal wadanka ka soo badbaadiyay waana xilligii jabhadeysiga oo wadanka ay ku badnaayeen daydega iyo istaca waxa si weyn loogu xasuustaa sidii uu wadanka uga sameeyay hubka dhigista iyo qaramaynta ciidan beeleedyadii daydega ahaa eebbe naxariistii janno ha ka waraabiye Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal wuxuu 28 bishii afraad sanadkii 2002 daaweyn u tagay dalka Koonfur Afrika iyadoo ay weheliso marwadiisa Kaldoon Xaaji Daahir iyo xubno ka tirsanaa golaha wasiirada ee Somaliland
waxaana uu ku geeriyooday magaalada Pretoria 3 bishii shanaad sanadkii 2002 waxaana aas qaran oo ahaa kii ugu weynaa abid ee ka dhaca Somaliland loogu sameeyay galbeedka magaalada Berbera oo uu marxuumku ku tartaarmay intii uu noolaa in lagu aaso aabihiis agtiisa. Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal Allah ha u naxariistay waxa uu guursaday intii uu noolaa 5 dumar ah wuxuuna dhalay 5 caruur ah oo kala ah 3 wiil iyo 2 gabdhood oo intaba ay u dhashay Marwe Caasha Siciid Caabi. Hindiya waxay xasuusataa hogaamiyaheedii buddiga u ahaa hanaankeeda dowladnimo Mahathir Gandhi. South Africa sidoo kale waxay karaamaysaa boqorta isla markaasina ayaa sharafta oo xasuusataana hogaamiyaheedii Nelson Mandela. 18 sano kadib Somaliland dowladeeda iyo shacabkeedu ma xusan isla markaasina ma xasuustaan aabihii halganka Somaliland madaxweynihii labaad ee jamhuuriyadda Somaliland aabihii buddiga u ahaa nabadeynta iyo hanaanka hadda ka jira Somaliland.